أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamaya islaamka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa walaashin Hinda. inkastoo goor dambe tahay oo mar walba xilliyada dambe oo aan sariirta imaadaan iska soo galaa, waqtiyada kale mashquulka iska badan, waqti baa la waayaa. waa adduun iyo dee hawlihiis iyo iska mashquulkiis. marka caawa had sida ciwaanka ku aragtaan waxaan rabaa inaan ka hadalno laba arrimood oo ku saabsan Somaliland maxay aqoon itiraaf u weyday iyo mucaaradka Soomaalidu ma u baahan yihiin inay helaan xirfado ay maaragtay ku ogaadaan nidaamka ay u shaqeeyaan mucaaradka adduunka. marka middan aan ku hormarno Somaliland, haddaan ku hormarno maxay itiraaf u weyday Somaliland. runta markii la yiraahdo magaca sida hadda magacu u yahay uma wada jirto oo macnaha uma wada dhama. waqtigii ingiriisku gumaysanayay ee gumaysiga ingiriiska ay ka soo baxeen walaalaha iyo waqooyiga Somaliland, sidaan wada ognahayba waxay ahaayeen dad macnaha istaageersan oo isla socda oo macnaha gacmaha is haysta, iswaafaqsan, wada jira ayay la yimaadeen inay la midoobaan walaalahood koonfurta. marka xaaladaas waan go'aynaa, waa inay macnaheedu noqoto midnimo sidaas oo kale ah in lagu go'ayo. go'iduna waa inay midnimadaas oo kale la timaadaa. marka muddo waxaan oran karnaa aad u fara badan oo dhowr iyo 20 sano oo 30 sano ku dhow ayay gooni isu taag ayay maaragtay ku dhawaaqeen. marka yaa gooni isu taagi kara, yaa qaran noqon kara? horta su'aasha la isweydiinayo waxay tahay war yaa qaran noqon kara? qaranka definitionkiisa macnihiisu muxuu yahay qaran? marka ereygii qaran Somaliland, qaranka jamhuuriyadda maxay hayto iskeed u madax bannaan oo isu dhawaaqday, it's too easy to say. waa wax aad u sahlan in la dhaho, erey ahaan in la dhaho, afka laga dhaho waa wax sahlan, laakiin waxay u baahan tahay practice, ficil bay u baahan tahay. marka reality-ga jirtaa waxay tahay meeshaan Somaliland loo dhan yahay ayaan jirin. qabiil baa xoog meeshii ku qabsaday, nidaamkaasna ku soo jiray muddo badan, waxna aan ka bedelin. nidaamkana haddii maaragtay wixii ay wax markaad raadinayso waa inaad maaragtay shafal garaysaa, marba dhinac ku daydaa, puzzle weeye. marba kan geli, marna xagga ku day, mar midig ka dili, marna bidix ka geli, siday ku socoto saad u ogaato. laakiin haddaad puzzle-kii meeshii hore aad ku bilowday aad ku qabato oo aad ku wado, waxbana aad ka bedelin, ayadii laftigeedana waxba iska soo bedeli waayaan, lagu sii macnaha inay macnaha roodka aad ku waddaa waxba ka soo xasili waayaan, waxba lagu faa'iidi waayo, adna aad isaga sii socoto, dee intaa waa doqonnimo intaa ka badan. riya sidaan qabo macnaha wax macno samaynaya maaha. marka Somaliland waxaan oran karnaa beel baa meesha ku habsatay. ha ku habsatay beeshii laftirkeedii. beel horta sideeda saan ognahay qaran ma noqoto. sidaan ognahayba beeli Soomaaliyeed oo meel taagan tirada doonta hal la ekaatay horta qaran ma noqoto. hase ahaatee beeshii laftigeeda iyadoon qaran noqon karin ayay xataa waxay ku kala tagtay maamulkii oo meesha iyadoo ay isku magacawday ba iyadii laftigeedii ku sii kala jaftay. macnaheedu qof macnaha qaran macnihiisu waxa weeye wuxuu huwan yahay gobolkaas inta ku nool xayawaan iyo bini aadan iyo nooca yihiinba isagaa masuul ka ah, iyo dhir iyo buur iyo dhulba.